waxa uu ku dhacay jacaylkeeda iyada oo ka weyn 10 sanadood. waxay u malaysay inuu yahay jacaylkii nolosheeda, waxayna ismoodsiisay inuusan weligeed ka tagayn oo uu la joogi doono. balse ma aysan ogeyn xaqiiqada madow ee sugaysay. Shakira iyo BK waxay markii ugu horeysay kulmeen sanadii 2010. markaasna waxay la duubaysay hees koox laacibiin ah, heestaas oo ahayd hees koobka kubadda cagta ee caalamka. BK markii uu arkay fanaanadan aad ayuu u jeclaaday, waxa uuna ka codsaday inay ballamaan oo soo sheekaystaan, balse way ka diiday oo waxay tiri mar kale ayaanu sheekaysan doonaa, hadda waxaan ku mashquulsanahay oo aan mashquul ku ahay heestaas samaynteeda. waxay ku heshiiyeen heestaas kadib in ay wada baxaan oo ay soo sheekaystaan. heestaasna waxay ahayd heestii lagu soo gabagabeeyay koobka kubadda adduunka. isagoo dhoola cadeynaya ayuu ka aqbalay dalabkeeda, waxa uuna ku yiri waan ku sugayaa, ballantaasna waan dhowrayaa. ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay koobkii kubadda adduunka, wadankiisa ayaana qaaday koobkii. Shakirana waxa ay fulisay ballantii ay u qaaday ahayd inay la baxdo oo ay soo sheekaystaan. wax yar kulamadoodii kadibna iyo xiriirka samaysteen, caalamkii oo dhan waxay ka wada sheekaysanayaan xiriirka ka dhaxeeya labadooda. waxa uu u raacay heesaha ay sameynayso oo dhan meel kasta hees ku qabanayso. iyaduna waxay bilowday inay daawato kubadaha uu ciyaarayo iyo uu ka qayb galayo ciyaartooda. ugu dambeynna waxay shaaciyeen inay xiriir leeyihiin oo xiriir jacayl uu ka dhaxeeyo. balse waxa dadkii oo dhamay ay ka yaabeen ayaa ah inay Shakira ka weyn tahay 10 sanadood BK-na waxa uu sheegay inaysan muhiim u ahayn da'da ay kala weyn yihiin ee iyada muhiim u tahay. wuxuu yiri Shakira waa jacaylkaygii, waa jacaylkii noloshayda, ilaa markii aan soo qaangaarayay xitaa waan jeclaa. xiriirkoodina waxa uu aad u siyaaday kadib markii ay dhaleen 2 ilmo oo yaryar ah. waxayna samaysteen qoys aad u qurux badan oo qof kasta jeclaan lahaa inuu helo qoyskaas oo kale. waxaan la joogaa qofka noloshan ugu quruxda badan, wuxuu iga yeelay inaan nolosha mar kale jeclaado. xiriirkooduna waxa uu socday muddo dheer oo gaartay 12 sanadood. Shakira waxay filaysay inay kula noolaan doonto nolol farxadeed ilaa inta ay ka dhimanayaan iyada iyo BK. weligeed kama aysan shakin hal ilbiriqsana Allah ka dhigay, waxa ay u aaminsanayd si weyn. balse nasiib darro ma aysan ogeyn in ay ka shalayn doonto sida aadka u badan ee aadka u weyn ay u aaminsan tahay uguna kalsoon tahay. sanadii 2022 ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in xiriirkoodii uu si noqday. Shakira ma aysan ahayn mid sawiradooda ku baahisa internetka sidii hore ugu baahan jirtay. waxa uu xiriirkoodu isku bedelay si la yaab leh bilo yar kadib. maxaa dhacay? tolo waa maxay waxyaabaha la yaab kale ee ay Shakira heesteeda ku jiray ee laga dhadhansanayay? waxay ka hadlaysay sheekadaasi qof dhaawacay dareemadeeda oo dhibaateeyay. waxa inta raacay in ay sawir ayada iyo caruurteeda ku wada jiraan soo dhigtay iyada oo leh caruurteyda oo kaliya ayaa awooda in ay dhaawacayga daweeyaan, iyaga dartood ayaana u dagaalamaya. balse arrimuhu waxay sii yaab badnaadeen oo bulshadii la yaab ku noqotay arrin ay samaysay Shakira. arrintaasuna waxay ahayd in Shakira ka tagtay guriga BK isaga iyo caruurtaba muddo bilooyin ah aysan xitaa u imaan. mid ka mid ah joornaalada wadanka Spain ayaa waxa uu soo saaray war kadis ah oo dadkii la yaab ku noqotay. warkaas oo sheegay in Shakira ay ogaatay khiyaano uu ku sameeyay BK oo uu haweeney kale ku khiyaamay iyada. waxa taas ka sii yaab badnayd oo ka sii xumayd in haweeneyda uu khiyaanada la sameeyay ay ahayd mid ka mid ah hooyada dhashay saaxiibadiisa la ciyaara, mid ka mid ah saaxiibadiisa la ciyaara naadiga Barcelona ay ka wada tirsan yihiin. warkaasina waxa uu u baahay si aad u baahsan caalamkii oo dhan, waxay noqotay fadeexo ku wareegta caalamka oo idil. waxa kale oo dadka kadisa ku noqotay inay labadoodu kala tageen kadib markii wararkaani faafeen si rasmi ah ay u kala dhaqaajiyeen. khiyaanadani way jirtay, laakiin dadku ma aysan ahayn kuwa fahamsan qaabka khiyaanadu u dhacday. kuma uusan khiyaamin marnaba hooyada mid ka mid ah saaxiibadiisa kooxda kala tirsan ee Barcelona ee waxa uu ku khiyaamay gabar shaqaale ka ah naadiga Barcelona oo shaqaale ka ahayd oo da'deeduna ay marisay 20 sano. way kala tageen, laakiin waxa ay Shakira iyo BK ku heshiiyeen in xiriirkoodu xiriir fiican uu ahaado si ay u awoodaan inay caruurtooda tarbiyeystaan, jawi qoyseedna ku noolaadaan oo khilaafkana ka fogaadaan. sidaas ayayna ku soo gabagabowday qisadii jacayl ee quruxda badnayd ee socotay muddada 12 sano ah. si fool xun ayay ku soo gabagabowday. way iiga kaadigeen, laakiin ma dhagaysan iyaga warkooda. hay oranin waa ka xumahay, waan ku ogahay inaad tahay beenaale. khiyaanada waa la cafin karaa, laakiin lama ilaawi karo. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabad geliyo. salaam markasta.